wafdu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayri ayaa maanta soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waxaana garoonka diyaaradaha Shaati Guduud si diiran ugu soo dhaweeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka wasiiro xildhibaano siyaasiyiin iyo ururada bulshada soo dhaweyn kadib wafdiga ayaa loo soo galbiyay garoonka kubadda cagta ee degmada Baydhabo halkaas oo mas'uuliyiinta ay kula hadleen boqolaal shacab reer Baydhabo oo kala imaaday 10 xaafadood ee ka kooban tahay magaalada Baydhabo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ugu horeyn shacabka la hadlay ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha uu joogi doono maalmo magaalada Baydhabo uguna mahadceliyay imaanshaha halkan uu ku imaaday wariga sharafnimada inuu sininkooda ra'iisul wasaaraha uu wafdi hogaamiyo kooda magaalada Baydhabo oo caasimada ku meel gaarka ee Koonfur Galbeed Koonfur Galbeed habooqada waqti badan niil roogi doono walbadan oo Koonfur Galbeed baahanayeen oo ilaahay raqabadi doono yaa geedka martinina ra'iisul wasaaraha hada waayana iyo wafdishay oo ilaahay walilana ra'iisul wasaaraha dhawaaw isina waysan lana dadka reer Baydhabo iyo ma hasantiin hada waayo ka fayle iyo sida fayleysan hada waayteen wafdiga ra'iisul wasaaraha iyo wanaag iyo sharafta la siinka kasaay oo hay'ad dawlad jeelanta dawladnimada wanaaga soo dhaweynta sooriyada ixtiraamka faylaanta warisin dalataan tii siinka kasaay tiya kama santiin insha Allah oo ilaahay dadka reer Koonfur Galbeed wali tiigsadayana horumar iyo dawladnimo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayri ayaa u mahadceliyay shacabka iyo madaxda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxaana sheegay muhiimadda safarka inay tahay sidii loo furi lahaa wadada isku xirta Muqdisho iyo Baydhabo iyo sidii mashaariic horumarineed loogu furin lahaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waxaan u mahadcelinayaa madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen oo ammaan iyo sharaf mudan sababtoo ah sida uu u noqday madaxweynaha waxaa halkan ka muuqata sida dawladnimada looga ogaayo Koonfur Galbeed gaar ahaan Baydhabo waxaa ka muuqata sida la isugu soo dhaweynayo dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada iyo shacabka Soomaaliyeed oo dhan madaxweynaha iyo gudoomiyahana waa ku mahadsan yihiin sida sharafta leh uga shaqeeyaan horumarka dalka iyo dawladnimada waxaa aasaas u ah wada shaqeyn Koonfur Galbeedna waxay weligeed ahayd buddigaha wada shaqeynta dadka iyo dawladda Soomaaliyeed waa idinkaga mahadcelinayaa waa mahadsantiin halkan waxaa hortayda ka muuqda mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed dhalinyaro Soomaaliyeed oo aan sheegay waa saamiga ugu badan ee dadka iskala dadka Soomaaliyeed maadaama ugu yaraan 75% shacabka Soomaaliyeed ay yihiin dhalinyaro waa idin hambalyeynaya sida isugu duubantiin waa idin hambalyeynaya sida dawladdiina u garab taagantiin waa idin hambalyeynaya hamuunta idinka muuqata iyo dawlad jacaylka Faisal Cabdi Warsa TV Baydhabo Soomaaliya